sunnada iyo diinta waa ka mid qofku inuu rajeeyo ilaahay nimcadiisa iyo naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa sicatu raxmatullaahi qofka arkaa ma quusto laakiin waxay culammadu yidhaahdaan bayna alrajaa'i waaltamani faraq weyn baa u dhexeeya waxay yidhahdaan altamani yusaaxibuhu lkasr tamaniga yididiilada qofku wax iska tamaniyo waxaa la socda bay yidhahdeen kasil iyo cajsi wax ma qabanayo laakiin waa iskaga riyoonaya waxa inay saasi noqdaan ama uu helo waa ku riyoonaya laakiin maaha qof camal ka soo fulayo dhaqan ka soo fulayo amaa bay yidhahdeen rajaagu waxay yidhahdeen saaxibuhu waa mujid waa qof dadaalaya waa qof dariiqa ku sugan rajana qaba inuu waxaa gaadhi doono walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bih walaa yajid lahu min duuni اllahi waliya walaa nasiira ma aha buu rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala tamanigiinna iyo yididiiladiinna riyadiinna ma aha iyo riyada ahlu kitaabka toona ahlu kitaab intay meel fadhiisteen bay waxay yidhahdeen naxnu shacb اllahi اlmukhtaar ama lan yadkhula اljannata ila man kana huudan aw nasaara janno geli maayo waxaan yahuudiya nasaara ahay muslimkuna hadduu isna yidhaahdo bes muslim baan ahay ilaahay wuxuu leeyahy yididiilo maaha arrinku iyo riyo maaha ee man yacmal suu'an yujza bihi baa ilaahay yidhi cidda xumo samaysa waa lagu abaalmarin ilaahay subxaanaه wa tacaala sokadiina heli maayo ciduu helisa ama u gargaarta walidalik ayaa alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahy rajaaga la sheegaya qofka taqsiirku uu ku dhacay ee dee ilaahay xuquuqdiisii aan wada dhammaystirin ilaahay malaha ha wanaajiyo waa qof kasta oo muslima markaa qof kasta oo muslimi ilaahay ma gaadhayo wixii uu xaq u lahaa inuu la wada yimaado laakiin wuxuu ogyahay ilaahay wuxuu nimco siiyey inaanu ka wada mahadnaqin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha idan shukrigaaguna waa laa yuxsa inaad la imanayn baad ogtay waa dadaasha laakiin tuxsini danna billaah ilaahay baad balaa wanaajinaysaa waxaad sileedahay ilaahay intaa waa kaa aqbalaya cafwigiisaaad rajaynaysaa waxaad sileedahay ilaahay waa ku cafinaya kaasi waa raaji waxaanay u dhowday in ilaahay ka aqbalo dembigiisa masaxo qofka taaco badan la yimi ee rajaynaya in ilaahay subxaanaه wa tacaala ka aqbalo waa raaji amaa buu leeyahy qofka intuu macsida dabaasho murugana aanay ka haynin haddana rajo qaba kaasi waa guruur buu leeyahy wagarakum biاllaahi اlgaruur kaasi waa mid kadsoomay rajo maaha taasi ama rajaa maaha waayo rajaagu wuxuu ku xidhan yahay camalka wanaagsan ilahay wuxuu ina leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa ku dayasho fiican baa idinku sugan yay ugu sugantay liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir qofka rajadaa qaba ilaahay ka cabsanaya maalinta qiyaame ee wadakara allaha kaiira qofka ariiqii nebi maxamed mara calayhi الsalaatu wasalaam dannigu aad ilaahay u wanaajisaa wuu fiican yahay laakiin tamani maaha khawfku in ilaahay laga cabsado waa inuu khawf dhaban noqdaa naar inaad ka baqataa waa inay wax dhaban noqotaa imaam alghazaliy raxmat ullaahi calayhi baa wuxuu leeyahy khawfka dhabtaa buu yidhi mihaal baan siinaya addoonka ilaahay rumaysan maalinta qiyaamana rumaysan lena waan cabsanayaa ee ereygaasi uu dhab ku yahay hadduu saadiq yahay buu leeyahy waxaa ka bixi lahaa ama ka iman la arrimo tusaale buu yidhi haddaad nin boqora ka cabsanayso ama qutaacu ariiq kuwa waddada gooyo jidgooyo dayday jidgooyo ku jira aad ka cabsanaysa buu leeyahy qofku wuu naxayaa oo waa baqayaa jidhku waa gariirayaa oo hurda ka iman mayso oo cunno u dhadhami mayso oo waxaasoo dhan waa kala tegaa siduu u baxsan lahaa oo xataa reer iyo ahelku wax weyn lama aha dhulka iyo deganaashihii wax weyn lama ahee meeshii dadkuba deganaa inuu ka cararo maadaama aad boqorkan isleedahay waa ku dilaya ama waa lagu xidhayaa
meeshii magaalaahid ba inaad ka cararto bannaan afka saartaa bay u dhowday kayn cidlaa iyo waxsha inaad u baxdo raaxada wuxuu ka doorbidayaa buu leeyahay tacabka iyo mashaqada iyo daalku ka doorbidaya khatar oo dhan buu u banbaxaya waayo khatar ka weyn buu ka cabsi qabaa buu leeyahay fa kayfa man yakhaafu binnaar buu leeyahay marka haddii khoof jiro oo aad naar ka cabsanayso qofka naar ka cabsanaya waa in maxay laga helaa buu leeyahay waa in laga helaa buu leeyahay xadiidkaa nebigu yidhi maa ra'aytu midla annaari naama haaribuha